رجعت مغربيه يحيى عطيه صح 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 يس كمان الله اكبر سيرو عيارته دمي وي غاداي واه سيرو عيارته دمي وي غاداي سيرو مرمى بالفعل يس يس فعلوا الاسود hambalyan leeyahay dhammaan ummadda islaamka hambalyan leeyahay afrikaanku meel waliba ay joogaan Morocco waxa noqotay dalka afrikaanka ugu horeeyay dalkii carbeed ugu horeeyay iyo wadankii islaamka ugu horeeyay gaar World Cup-ka semifinalkiisa ama farnamaadkiisa Morocco markii laga yimaado guusha ay soo istay caalamka islaamiga Afrika oo dhan oo wadan u ciyaaray runtii qaab aad u qurux badan tactics-ka iyo qaab ciyaareedkoodu waa mid ku soo jiidanayay groupka ku dhaceen group stage-kii World Cup-kana waxa uu ahaa group aad u adag iyadoo la group hay Belgium oo runtii kaga jirta kala sareynta FIFA ee wadamada ugu awoodda weyn dhanka kubadda cagta adduunka kaalinta labaad iyo sidoo kale Croatia xalay tola ka talaabstay Brazil haddana semi-final World Cup-ka joogta groupka kaasi ah bay wan kaga soo baxday 16 wax ku dhacday wadanka Spanish oo kamid ah wadamada adduunka kubadda cagta ugu wanaagsan waana ka soo reysay caawan waxa ka reysay wadanka Portugalska oo kamid ah wadamada loo saadaalinayay World Cup-ka inuu hanan doono waad arkaysaa oo wadada Morocco soo martay semi-final-ku ma aha wado sahlan iyadoo asaas jirto ilaa hadda shabagooda hal gool lama taabsin hatta rikoodhayaashii markay ku laadanayeen Spanish-ku hal gool kama dhalin goolada Yasin Bono halka gool ee shabagooda group stage-kii taabtayna Naif Agrad ayaa iska dhaliyay oo ah ciyaartay ka tirsan xulka Morocco soo kale waxaan hubaa inay ka soo bixi kareen France iyo England hadba tii ay ka hor yimaadaan semi-final-ka hadda ay u soo noqdaan labadooda CB ama center back ee Naif Agrad iyo sidoo kale Romance soo ciyaartay caawa ku dhaawacmay وبرهان قد Morocco من هيسن جوجا وريا جو سبورتس waxaan u baahanahay garmaan Morocco sida ugu dhaqsaha badan la ila soo gaara semifinal kana insha Allah Morocco guul